Waxaa goordhow war qoraal ah ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir isagoona sheegay in burburinta ka socota Casa Italia ee ay shacabka badan ay aadka ugu falceliyeen uu sheegayo in codsi kaga yimid dowladda Talyaaniga oo horena safaarad goobtaasi u ahayd in ay doonayaan dhulkooda balse guddoomiyaha ma xaqiijin waxa ay markaani ka doonayaan balse waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in dhulkaasi aysan ganacsatana dhisanayn madax ka mid ah madaxda dowladda federaalkana aysan qayb ka ahayn dhisitaanka isagoona markaa u sheegay shacabka halkaasi deganaa in lagaga barakicinayo kaliya in dowladda Talyaaniga ay soo codsadeen dhulkooda isla mar ahaantaana guddoomiyaha uusan cadeyn waxyaabaha ay kala doonayaan ma safaaradda ay dib u soo cusboonaysiinayaan Talyaaniga annagoo aan ognahay in safaaradda Talyaaniga hadda ay ku howlgasho gudaha xerada Xalane waxaa sidoo kale isweydiin mudan guddoomiyaha kama uusan hadlin shacabka xirxiran ee ku jira saldhigga degmada Xamarweyne oo u badan hooyooyin waayeel ah iyo gabdhaha halkaasi ku ganacsanayay taasi weli kama falcelin kamana hadlin dadka u xirxiran burburinta shalay lagu burburinayay xarunta ama goobta Casa Italia ay ku taal dad badan oo xal halkaas ka qaxay ayaana la ogeyn cirib iyo jaan halka ay dhigeen ayagoona ka warwarsanaa halka ay ku hooyan doonaan habeennimadii xalay ahayd xarunta lagaga arrimiyo gobolka Banaadir ayaa waxa uu guddoomiyaha ku sheegay in ganacsato iyo dowladba aysan ku lug lahayn kaliya ay u cadeynayaan bulshada Soomaaliyeed in dhulkaasi dowladda ilaheed ee Talyaaniga ay doonayso ayadoon qoraalkaasi uusan ku cadeyn dowladda Talyaaniga ma ganacsatay ka iibsatay mise dhulkaasi ayada ayaa dhisan doonta mise ayada dhisan rabtaba guddoomiyaha taasi wax cadeyn ah kama uusan sheegin kumana cad qoraalkiisa daawada adigaas daawanaya maxaa isleedahay maadaama guddoomiyaha uu ka hadlay kaliya burburinta iyo cidda soo igmatay in loo burburiyo goobta miyaysan habboonayn shacabka 4,000 ah ee ku dhaqan gudaha caasimadda Muqdisho mas'uulka ka yahay guddoomiyaha xuquuqdooda in uu ka hadlo miyaysan habboonayn guddoomiyaha uu u doodo dadka masaakiinta ee goobta ku sugnaa miyaysan habboonayn guddoomiyaha dib u dejin ay u sameeyeen xitaa haddii shacabkaasi goobta laga raray miyaysan habboonayn in guddoomiyaha hataa ay ku wargeliyaan intaan la burburin ka hor shacabka masaakiinta halka ku ganacsanayay iyo kuwa hooyga u ahaydba oo dhammaantooda u badnaa dumar daawade ra'yigaaga waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga ee nagula wadaag